jawigii hanfiga iyo kulaylka lahaa waxa uu isu bedelay mid qabow buurihii iyo bacaadkii aan indhaha lagu hayn karayn iyaguna waxa ay noqdeen dhul cagaaran oo indho basaasay ay u busaylaan sidaasi oo dhan waxa ay isu bedeshay magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama oo maalmihii la soo dhaafay ay ka da'ayeen roobab qable ah oo biyo badan aan dhigin kuwaas oo magaalada iyo buuraha ku hareeraysanba ka dhalan rogay sidii lagu yaqaanay muuqaal ay faafiyeen maamulka magaalada Makka ee boqortooyada ayaa laga arkayay roobab mararka qaarkood baraf wata oo ku horaya gudaha magaalada iyo hareeraheeda roobabka ka da'a Makka xilliyada qaar maaha wax cusub balse weydiinta mudan in laga jawaabo ayaa sababta ay buurihii iyo dhadhaabadii Makka ay isugu bedeleen kuwo qurux badan oo cagaaran arrintan culimada ku xeel dheer diinteena suuban waxa ay ku macneeyeen inay tahay hadalkii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee oo la arkay iyaga oo daliishanaya xadiiska sugan ee ku yaala kitaabka saxiixul bukhari ee uu macnihiisu yahay maalinta qiyaame ma dhacayso ilaa lacagta iyo dhaqaaluhu ay koraan oo ninka ka bixiya sakada hantidiisa uu waaye cid ka qaadata iyo ilaa inta dhulka carabtu uu noqonayo doog iyo wabiyo culimada cimilada iyo juqraafiga u bambaxay waxay iyaguna arrintan ku sheegeen inay la xidhiidho noocyada roobabka da'ay iyo isbeddelka ku yimid jawiga magaalada xamiid al-dawsari oo ah la taliyaha boqortooyada ee xarunta horumarinta dhirta iyo la dagaalanka saxaraha waxa uu arrintan ku sheegay 3 qodob roobabka ka da'ay Makka iyo agagaarkeeda oo u badan roobab yar oo aan biyo dhig lahayn maalmo xiriir ahna da'ayay wana nooca Soomaalidu ay u taqaan gabaxle roobabkan ayaa si degdeg ah u waraabiya dhulka waxaana la sheegaa in saameyn ahaan ay ka wanaagsan yihiin roobabka maashoodka ah ee daadka soo roga kuwaas oo dhulka ku dhaafay si dhaqso ah al-dawsari waxa uu ku tilmaamay in sababta labaad ay tahay jawiga ku habboon koritaanka dhirta oo maalmahan ka jiray Makka cimilada ayaan kulayl iyo qabow midna ahayn waana jawiga ugu wanaagsan ee dhirtu ay ku baxdo khabiirkan ayaa sidoo kale ku tilmaamay sababta saddexaad in ay tahay dhir hore oo ku jirta dhagaxaanta hoostooda iyo buuraleyda oo aan helin fursad ay ku koraan sanadihii hore tanna ay tahay fursaddii ugu horreysay ee alla siiyey Makka oo awalba ahayd dhul barakaysan waxay hadda ku darsatay dhul qorxoon iyo cimilo dhexdhexaad ah